waxay ku dhowaanayaan xuduudda Itoobiya iyadoo kooxda TPLF ay sida la sheegay bartilmaameedsanayso marinka gaadiidka. cutub ka tirsan ciidamada Djibouti ayaa loo dhaqaajiyay dhanka xuduudda ay Itoobiya la leeyihiin, tallaabada oo lagu sheegay mid lagaga hortegayo halisaha ay jamhadda Tigreeg u gelin karto isu socodka baayaca mushtariga labada wadan. jamhadda Tigreeg oo khilaaf kula jirta xukuumadda dhexe ee magaalada Addis Ababa. ila xoogayaa lagu sheegay oo ay soo xigatay warbaahinta qaarkeed waxay sheegeen in la arkayay ciidamo Djiboutiyaana oo ku qalabaysan gawaarida gaashaaman ee dagaalka oo u dhaqaaqay dhanka xuduudda Itoobiya, taasoo ay dhinacyada qaarkood u arkaan wax sii kordhin kara khilaafka geeska Afrika. warbixinaha ayaa tilmaamaya in ciidamada Djibouti aad u danaynayaan inay kor u qaadaan ammaanka wadada muhiimka iyo jid tareenka isku xidha Djibouti iyo Itoobiya, kaasoo ay soo maraan 95% xamuulka badeecadaha Itoobiya ee ka soo degaya ama ka dhoofaya dekedda Djibouti ee Badda. ciidanka jamhadda Tigreeg hadda waxay ku sugan yihiin gobolka Canfarta, waxaana suuragal ah inay jaraan marinka gaadiidka iyadoo TPLF aanay dhigaha u raaricin xabatoojintii ay xukuumadda dhexe ku dhawaaqday, iyadoo jamhaddu ku tilmaantay xabatoojinta mid ka turjumaysay inay ciidanka federaalku ku guuldaraysteen dagaalkii gobolka Tigray. sida la ogyahay toddobaadkan bartamihiisii taliyaha guud ee militariga Itoobiya General Burhanu Jula waxa uu uga digay ururka TPLF cawaaqib xumo uu sheegay inay kala kulmi karaan haddii aanay ka soo bixin shuruudihii xabatoojinta gobolkaas, inkastoo xabatoojintaasi markeedii horeba ay ahayd midaan heshiis ku imanin ee ay si gaara xukuumaddu ugu dhawaaqday. Burhanu Jula oo ah taliyaha guud ee ciidanku waxa uu soo gudbiyay warbixin telefishinka laga sii daayay Isniintii, isagoo ka hadlayay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen sababaha ka dambeeya ka soo bixitaanka ciidanka federaalka ee inta badan gobolka Tigray ay ka soo baxeen iyo waxyaabaha ku khasbi kara mar kale inay militarigu ku laabtaan gobolka. waxyaabaha oo ay ku jiraan buul fulin la'aanta shuruudo hordhac u ah oo laga doonayo inay aqbalaan xabatoojinta. isku day ay Tigreegu ku doonayaan inay ku xakameeyaan awoodda militari ee federaalka ayaa waxaa la sheegay inay dejisteen istaraatiijiyad cusub, taasoo ay uga aargudanayaan xanibaado la sheegay inay Itoobiya ku hayso kooxaha gargaarka bani'aadanimo ee ka soo guuraya koonfurta una sii jeeda Tigray. istaraatiijiyadooda cusub waxaa ka mid ah inay gacanta ku dhigaan dariiqa muhiimka iyo jid tareenka si ay u jaraan badeecadaha u socda dhanka Itoobiya, inkastoo aanay taasi sahlanayn oo dowladda Shiinaha oo hirgelisay jid tareenkaasi maalgashi ballaaranna ku lihi ay saldhig ciidan ku leedahay Djibouti oo ay damaanad qaadi karto amniga dariiqaasi, maadaama sababta ay markeedii horeba ciidamadeeda u keentay Djibouti ay ahayd inay ilaaliyaan maslaxadaheeda gobolkaasi iyo guud ahaan qaaradda Afrika. xiisadahan amni darro waxay ku soo beegmayaan xilli ay Djibouti iyo Itoobiya bilaabayaan wejigii labaad ee isku xidhka korontada. Djibouti iyo Itoobiya waxay heleen dhaqaale ay ku dhisaan khad labaad oo korontada gudbiya kadib markii labada wadan ee dariska ahi ay dhammaystireen mashruucii kan ka horreeyey ee isku xidhayay korontadooda. mashruuca hore wuxuu Djibouti u suurageliyay inay hesho tamarta korontada laga dhaliyo ee Itoobiya, taasoo ah nooca dib loo cusboonaysiin karo qiimaheeduna jaban yahay. kadib markii labada dal ay ku heshiiyeen in la sii horumariyo mashruuca, bangiga horumarinta Afrikana waxa uu hadda ansixiyey lacag dayn iyo deeq isugu jira oo qiimahoodu yahay 83 milyan, taasoo u saamaxaysa Itoobiya iyo Djibouti inay sii wadaan dhismaha khadkooda gudbiya korontada oo marka dambe